بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو هذا موضوع مانتا daawade waxaa jirto khatar ku saabsan in uu raaco dagaalkii saddexaad ee adduunka kaasoo ay sabab noqon doonaan labada wadan ee kala ah Russia iyo Ukraine ayaa danaynaysay waayihii dambe oo dhan inay ka mid noqoto xulafada NATO halka Ruushkuna uusan ogoleen midda taasi ayaa sababi karto in Ruushku uu ku duulo Ukraine halka Ukraine ballanqaadyo fara badan ay ka haysato xulafada NATO inta aysan ku biirin ka hor waxaa halkaasi ka muuqata kala fogaansho aad u dheer oo haddaba u dhaxayso Yurubta iyo Ruushka. Duulimaadkii la filayay waa uu dhacay oo Ruushka ayaa ku duulay Ukraine. Haddaba Ukraine awood badan oo ay ku hor istaagto ciidamada Ruushka ma aysan lahayn. Waxaa la tilmaamay in dagaaladii ugu horeeyayba ay ka bilowdeen gudaha iyo bannaanka fog ee xuduudaha Ukraine. Waxaa la tilmaamay in duqeymo aad u xoogan in loo geystay magaalooyinka dagaaladu ay ka bilowdeen. Ukraine ayaa isticmaashay hub dhammaan wax allaale iyo waxa ay haysatay iyadoo dadka shacabka xitaa u diyaarisay inay dagaalamaan. Madaxweynihii iyo madaxweyne hore intaba dagaalka oo ay ka qayb qaadanayaan. Intaa waxaa dheeraada in ciidamada Ruushku ay gudaha u galeen dhowr magaalo. Sidoo kale waxaa la warinayaa in dagaaladaasi ay aad uga qayb qaateen diyaaradaha loo yaqaano Bayraktar kuwaasoo burburiyay hub aad u tiro badan. Isla markiiba waxaa la arkayay ciidamo la kala qabsaday oo Ruushka oo qabtay tusaale ciidamo ka tirsan ciidamadii u dagaalamayay Ukraine kuwaasoo rumaha dagaalka lagu qabtay. Dhanka kale sidoo kale waa ay jiraan ciidamo Ruush ah oo iyaguna la qabtay oo dowladda Ukraine ay qabatay. Sidoo kale waxaa la arkayaa burburka magaaladii iyo hubkii Ukraine. Sidaas la mid ah waxaa muuqato in burburin aad u xoogan in loo geystay ciidamadii Ruushka hubkooda. Dhammaan waxaa soo idil halkan ayaad ku arki kartaa. Dagaalkani haddii sidaan lagu sii fiirsado waxaa ka dhalan kartaa khatar bini'aadaminimo. Sidaas la mid ah waxaa halkani aanan ka marnayn in dagaalkani ay soo gali doonaan quwado kale taasi oo dhalin karta in Ruushku uu adeegsado dhammaan awoodaha uu leeyahay. Waayo xalay maqribnimadii ayay ahayd markii uu tilmaamay in heegan loo gelsho dhammaan ciidamada isbishaalka ah ee qaabilsan dhanka iyo hubka aad wax u gumaada ee nuclear-ka hal active gareeyo ayay ka dhigneed kelmadihiisii xalay. Sida aan tilmaamay muuqaalka bilowgiisa waxaa jiro maxaabiis aad u fara badan oo la kala qabsaday ilaa hadda lama soo shaacin tirada guud ee la kala qabsaday. Daawade aan isweydiino su'aal taasoo u dhacaysa sida tan: dagaalkani haddii uu isku bedelo dagaalkii saddexaad ee adduunka yaa isleedahay waa uu ku guuleysan doonaa? Sida caadiga ahi aniga ra'yi ahaan waxa ay ila tahay dagaal saddexaad oo adduunka oo dhacay cid ay faa'iido ugu jirto haba yaraatee ma jirto. Waxaa imaan doonto ama la arki doonaa duni dhammaan wada dhiigayso, burbur aad u xoog badan iyo dunida oo aad u tirtiranta. Dhanka kale Ukraine ayaa soo bandhigtay muuqaallo muujinaya burburka baabuurta dowladda Ruushka kuwaasoo ay burburiyeen diyaaradihii
beeqdaar. Xadaaradan guud ee tiknoolajiyadda iyo waxyaabaha kala duwan ee aan maanta ku naaloonayno ayaa gebi ahaanba dib u noqon doono, maadaama la adeegsan doono hub qaarkood aad wax u biya, sidoo kale ilaa iyo hawada sare xitaa in aad loogu wada dagaalami doono oo dhanka iyo satellite-yada dhulka lasoo wada dhigi doono. Hubaashii dagaalka saddexaad ee adduunka waxay khubaradu tilmaamaan gadaashii in la adeegsan doono waramo iyo qaansooyin. Taasi micnaheedu waa wax allaale iyo waxa la haysto hadda ayaa dib loo celi doonaa dunida, oo maaragtay waxaa dhici doono wax aan la qiyaasi karin. Ugu dambeyn daawade, waxaan ka codsanayaa inaad igu saacido like-ka iyo subscribe-ta, sidoo kale ha iga hilmaamin share-ta insha Allah. mahadsanid. ugu dambeyn daawade, waxaan ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.